darajada shimbirka ugu sarreeya ciidanka ilaalada dalkaasi Norway. Shimbirka lagu magacaabo Nils Olaf ayaa madax ka ah ciidanka ilaalada jamhuuriyadda dalkaasi Norway. Shimbirkan oo ah nooc shimbir badeed loo yaqaan ay darajadiisu tahay Cornell. Arrintan ayaa kamid ah arrimaha la yaabka leh ee dunida ka dhacay ama lagu arkay. Waxaana la sheegay in sababta darajada sare lagu siiyay ay tahay shimbirka Nils Olaf iyadoo loo arko inuu yahay nasiib ciidan iyo mid far wanaagsan u leh ciidanka jamhuuriyadda Norway. Daraasadda sameeyay ayaa cadeynaysa in shimbirkan oo laba midab leh oo dushiisa sare ay madowdahay hoostiisuna ay caddahay uu yahay mid dareenkiisu u sareeyo. dalka Ingiriiska sanadkii 2011 ayaa daraasad lagu soo bandhigay sheegtay in shimbirkani mararka qaarkood uu ku dhaco niyad jab kaasi oo waqtigaas aamusa kaligiis socda raashinna joojiya oo madaxa hoos u dhiga. taasi oo cadeyn u ah in jirto xaalad ku timid oo u baahan wax loogu qabto. waxaana ay sheegeen in shimbiro sidaas oo kale ay daweeyeen isla markaasina arrimahooda wax uga qabteen. taasina ay tahay xataa arrimo aan ayaga saameyn laakiin bulshada ay la nool yihiin saameeya.